sibil waba ka bilaabay wada la mari doona ma jirto hadaan idin sheegaya wadooyinku waa xidhmayaan sidaan rajaynayna wadooyinku waa xidhmayaan ganacsigu waa xidhmayaan cidi isu socon mayso marka dadkii nimanka wixii dhaca dad iyo dunyo mood iyo maal wixii meesha ku luma oo sibil wooga oo ka dhasha weli halkii bay taagan yihiin 20 sanadood mar laga joogay inaan go'aanayno u go'ayno dawlad bayna qaadayna waa nimanka Northern Region jooga weey ilaa saacado haysta iyo nawaaxigeeda weli halkii bay taagan yihiin dibna uga ma hayno walba waxay keenayaan qoos ugu go'ay mareen wuxuu fadhiyaa weligeed inta wax ka soo dharanay ilaa kurayay burichadiina iyo magaalooyinkan inaan burburino baaqiina daadino وحلال وحي نقبلنا ولا تابن كرمان محوك رونين وإن كد دد بدنين وإن كد دنيا بدنين بدل كأني هايستا يجب أن قحيي يجب وحول بهدي لا يكون وقص ليه يجب السائل وقال وين فرماينا نقاشين وحلا يري واحد شفت ما إنجليزو وحي هذا if you want a peace you prepare for war هذا ما ندونيسو هورت الدجال سديار قريه ديك الأمان هري ميسي هاس وإنك إنا تابعي ساخسا ذلك إني هري مينو هداينا الدجال ديار قريه أو كل غاقين أو قبان أو أي نوح وحلا تابت السمين أمان مهرينو وحلا وحد ذلك إني هري مينو أحوت الأسون بينو هارين نين إيجاه رياضو halkan ka hadlo hadalkiisaan dhageystay wuxuu yiri waxaynu maanta qabanno ya boqolka sano dambe ina sheeb gareynayo ina tilmaan noqoy halkaas aynu ku saxay taasayna saxaysa waa runtii waxaynu joognaa dadkeena iyo caruurteena waxaynu maanta u dhigi lahayn inaga la inooga fadhiya nin walba xilbaa ka saaran qof marka la inoo eego mid yar iyo mid weyn dadka qaangaadhka rag iyo dumar qof walba xil baa ka saaran inuu xilska nabadgelyada aanu keenay nabadgelyaanu haynaa xagee nabadgelyo ka keeneen sibil waba hadda dalkii qarka u saaran yahay waana dhacaya insha Allah nabadgelyada xagee ka keenay maanta xil bay naga saaran qof walba oo inaga mid ah xil bay naga saaran dalkii nidaam soo xishan hadii aynu tallaabo qaadno It still hurts, even though they were the enemy, they survived, They're still humans. Unfortunately, no as we understand, help assistance is limited in terms of resources. The lasting solution for these people will be the day that they will go to their original place where they came from originally, or a place where the government can give them a
they've learned to start their own livelihoods again. The newly arrived joined thousands of others displaced by drought, famine and wars in southern Somalia. Tired and hungry, displaced people from Mogadishu seek for help in Hargeisa, Somaliland. But they look for assistance from the most unlikely quarters. Here, hundreds have gathered at the offices of an Environment Protection Agency to be registered. They are part of an estimated 40,000 people who fled the conflict to the relative safety of Hargeisa. Thousands others are scattered in other settlements in the breakaway republic. And they are very weak, women and children under 5, pregnant women, and they don't have any assistance. First place, just we fight to locate them, and then to get the assistance from the government, Somaliland, WFP or UNHCR, to assist them as a humanitarian before they decide which way they go. These women fled their homes and lost their loved ones and property. They walked many miles with their children to get here. Theirs are harrowing tales of misery and a quest to survive. I fled from the Bakara area of Mogadishu during the heaviest fighting in April. It took me 16 days to reach Hargeisa. I'm here with some of my family members, while others are still in Mogadishu. There is no going back for me. I'm here to stay.